bismillaah waxaa hore inoogu socday painkillers xanuun baabiyaal ayaa hore inoogu socday. Maanta waxaa ka bilaabeynaa daawada loo yaqaano Codeine. Codeine waa sida morphine oo kale balse way ka daciifsan tahay. Daawadan Codeine ah waxay u shaqeysaa sida morphine oo kale laakiin tayo ahaan iyo cufnaan ahaan way ka daciifsan tahay oo way ka hooseysaa. Haddii aan fiirino Tramadol waa sida Codeine oo kale balse iyadana way ka daciifsan tahay daawada loo yaqaano Codeine. Waxaana loo isticmaalaa xanuunada dhexdhexaadka ah oo ay keeneen acute pain qofka marka xanuun ku soo boodo oo kale ayaa loo isticmaalaa. Waxaa kale loo isticmaalaa qofka marka xanuun ku soo boodo daawooyinka xanuun baabiyaasha ee dhexdhexaadka ah sida Diglifeniga oo kale, paracetamolka oo kale iyo aspirinka ayagana waa loo isticmaali karaa. Intaas waxaan kaga soo baxnay daawooyinka loo yaqaano opioid analgesics-ka xanuun baabiyaasha loo yaqaano opioid analgesics-ka ayaa intaas kaga soo hadalnay. Haddii aan fiirino non opioid analgesics daawooyinka loo yaqaano waxaa ka mid ah Nolocaine. Daawadan waxaa loo isticmaalaa dadka ku sumowga daawada loo yaqaano morphine ama Codeine ama Tramadol. Daawooyinkaas qofka ku sumow ayaa la siiyaa. Inta badan way dhacdaa qof markuu daawo qaato inuu daawada ku sumowo. Marka inta saddexdan qofka daawada uu ku sumowo ayaa la siiyaa Nolocaine si ay kaga saarto daawadii sunta ku noqotay jirka. Daawooyinka kale markuu qof ku sumowo aragnaa waxaa la siiyaa inflammable DNS ama Normoxidine ayaa la siiyaa. Qofka si gaar ah markuu u sumowo waxaa la siiyaa glucose oo kale ayaa la siiyaa. Laakiin saddexdan hadda soo sheegnay oo ah Codeine, Tramadol iyo morphine qofku markuu ku sumowo waxaan siineynaa daawadan loo yaqaano Nolocaine. Daawooyinkan loo yaqaano Nolocaine ayaa siineynaa si qofka jirka sunti ku jirta ay kaga saarto. Waxaan galeynaa aspirin. Sida wada ogsantiin aspirin waa daawo caan ah oo inta badan caalamka oo dhan laga isticmaalo. Wixii ka horeeyay 1985 ilaa iyo haatan la isticmaalo. Aspirin sidoo kale waxaa loo yaqaanaa acetyl salicylic acid ayaa loo yaqaanaa. Aspirin waa magac common ah laakiin chemical ahaan waxaa loo yaqaanaa acetyl salicylic acid ayaa loo yaqaanaa. Haddii aan fiirno indication use daawadan waxaa loo isticmaalaa xanuunada kala duwan sida xanuunka pain ayaa loo isticmaalaa. Waxaa kaloo loo isticmaalaa qandhada fever ayaa loo isticmaalaa. Waxaa kaloo loo isticmaalaa bararka inflammatory ayaa loo isticmaalaa. Waxaa kaloo loo isticmaalaa caabuqa inflammation ayaa loo isticmaalaa. Xaaladaha kale ee loo isticmaalo aspirin in lagu daweeyo waxaa ka mid ah qandhada lafaha rheumatic fever ayaa loo isticmaalaa. Waxaa kaloo loo isticmaalaa wadne xanuunka heart attack ayaa loo isticmaalaa. Waxaa kaloo loo isticmaalaa xinjirowga dhiigga blood clotting ayaa loo isticmaalaa. Daawadan aspirin waxaa lagu yareeyaa khataraha ka dhasha qaybaha kala duwan ee kansarka laguma daweeyo laakiin waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo khataraha uu ka dhasho kansarka qaybihiisa kala duwan ayaa loo isticmaalaa. Waxaa kaloo loo isticmaalaa rheumatic factor ayaan dhahnay rheumatic fever ayaa dhahnay. Dadku waxay isku qaldaan rheumatic factor iyo rheumatic fever ayaa jiro. Marka aspirin waxaa loo isticmaalaa rheumatic fever qandhada ka dhalatay qandhada lafaha ayaa loo isticmaalaa laakiin rheumatic factor looma isticmaalo xanuunka ku dhaca lafaha looma isticmaalo. Dosage qiyaasta laga qaadan karo daawadan loo yaqaano aspirin. Qiyaasta daawadan laga qaadan karo waxa ay ku xiran tahay hadba xaaladda lagu daweynayo, da'da qofka iyo miisaanka qofka ayay ku xiran tahay. Waxaana laga qaadan karaa garaamyo kala duwan sida 60 mg, 75 mg iyo 300 mg. waxaa kaloo jira 325 mg. 60 mg waxaa la siin karaa caruurta jira 15 sano ka yar ayaa la siin karaa. 15 sano ilaa 25 sano waxaa la siin karaa 75 mg. 25 sano wixii ka weyn waxa ay qaadan karaan 300 mg. 325 mg ayay qaadan karaan. Side effect saameynta ay leedahay isticmaalka daawada loo yaqaan aspirin waxaa ka mid ah gaas calooleed gastrointestinal ulceration ayaa ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ah calool xanuun abdominal pain ayaa ka mid ah. Dhiig calooleed ayaa ka mid ah stomach bleeding. waxaa kaloo ka mid ah madax xanuun qofka madaxa inuu xanuuno ayaa ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ah
nabro rash inay qofka kasoo baxaan ayaa macquul ah. Muslim ma dhacaan side effect-yadan, laakiin mararka qaar way imaan karaan, mid ka midna wuu imaan karaa. Haddii aan fiirino contraindication, lama siin karo ama daawadan ma qaadan karo. Daawadan marka aad u qaadanayso wadna xanuun, ka fogow isticmaalka daawada ibuprofen. waxaa la dhahay daawadan loo yaqaano aspirin marka uu qofka u qaadanayo wadna xanuun waa in uu ka fogaadaa in uu la isticmaalo ama in uu la qaato daawada loo yaqaano ibuprofen, waa ka mamnuuc. Daawadan maamada umusha ah lama siin karo, waayo waxa uu ku siyaadin karaa in dhiigbax badan uu imaado ayuu keeni karaa. Qofku marka uu dhaawac ku dhaco oo kaleeta iyadana lama siin karo aspirin, waayo dhiigbixi ayuu sii siyaadin karaa. cadada laga qaadanayo, dooska laga qaadanayona waa 12, 16 ilaa 30 waa laga qaadan karaa. Markastaba qofka waa inuu ka taxadiraa isticmaalka daawadan. Waxaa kale oo muhiim ah in qofka uu ogaado in daawadan effectiyada ay keeni karto uu garanayo ayaa muhiim ah qofka health professionalka ah, waana in qofka si fiican uga taxadiraa. Haddii laga maarmi maayo xilliga uurka maamada waa la siin karaa si looga hortago xinjirowga dhiigga, waxaana la yareeyaa xaddiga qiyaasta daawada. Tusaale ahaan maamada waxaa la siinayaa 60 mg ayaa la siinayaa, maadaama maamo ay tahay qof da' ah ama maamo ay tahay dhexdhexaasha 20 ilaa 30 jir camal ay tahay, halkii ay ka qaadan lahayd 75 iyo wax ka weyn waxa ay qaadanaysaa 60 mg ayay qaadanaysaa, maadaama laga maarmi waaye. walaalkiina Dr. Cabdisalaam Nuur Axmed oo idin leh ka faa'iideysi wacan. Subscribe saar kanaalkeena si aad u heshid fiidiyowga cusub aan soo gelino. waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan. wixii ra'yi iyo qoraal ah noogu reeb qaybta commentiga. mahadsanidin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacay bahayo, adaniyo afada jira.